danjiraha dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya dalka Algeria ayaa maanta laga gudoomay nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjiranimo waxaana ka gudoomay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Algeria Ahmed Attaf. Danjire Yusuf Ahmed Hassan Yusuf Jego ayaana maanta waxaa warqadaha danjiranimada looga gudoomay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Algeria iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyay danjiraha magaalada caasimadda ah dalkaasi Algeria. xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Algeria ayaa ah mid aan waqti xaadirkan soo bilaaban. xiriirka labada dowladood ee Algeria iyo Soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid soo bilowday tan iyo bilowgii sanadkii 1960 xilligaas oo Soomaaliya xornimo ay qaadatay. waxaana dowladda Algeria ay ka mid tahay dowladaha Carabeed ee sida weyn u garab istaagay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xilligaasi. labada dowladood waxay ka mid yihiin ururka Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika iyo ururka Iskaashiga Islaamka. Danjire Yusuf Jego ayaa ballan qaaday in isbedel weyn uu doonayo inuu ka sameeyo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Algeria. waxaana uu sheegay in fursado badan ay jiraan oo dadka wax baranaya iyo sidoo kale ganacsigaba ay ka heli karaan dalka Algeria. Algeria waxay ka mid tahay dowladaha sida weyn sidoo kale u garab istaagay dadka shacabka ee Falastiiniyiinta, waana tii ballanqaadka uu sameeyay madaxweynaha dowladda Algeria xilligii doorashada, isagoo ballan qaaday in haddii dowladda Masar ay albaabada u furto ee shacabka Algeria iyo dowladduba inay garab istaag xoogan ay u fidin doonaan shacabka magaalada Gaza. waxaana uu yiri waa in la furaa marinka Rafah.